بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم إن شاء الله تعالى وحن قادنينا قيبتي سديداد قيبتي سقالات وأسماء الحسنى كمدة waxay nooga bilaabanaysaa magaca 77 magaca 77 waa alwaali waa Allah xiriiriye adoomadiisa magacan alwaali culimadu waxay dhaheen qofku hadii uu akhriyo cinda sawaaciq dabaylaha iyo qaylooyinka iyo waxaas iswatalul gariirka iyo aafooyinka markii mataqaana la joogo xiliyahaas oo kale qofku haduu akhriyo ilaahay wuu ka celiyaa baa liiriyo uu ka radiyaa magaca 78aad waa almutaali waa Allah sareeya magacan almutaali qofkii akhriya bay yiraahdeen culimadu 7 maalmood maalin walbana ka akhriya kun mar ilaahay cadawgiisa wuu halaagaa baa liiri waxa alla wixii cadow ku ah ilaahay wuu halaagaa magaca 79aad waa albarru waa Allah samafalka badan waa Allah samafala macnaha magacan albarru hadii lagu akhriyo bay dhaheen culimadu wiil saqiir yara macnaha cunug yar ama mataqaan sabiyad ha ahaato ama sabi ha ahaado 7 mar hadii lagu akhriyo ilaahay wuu u dhimriyaa baa liiri xaalkiisana wuu hagaajiyaa sidoo kalena wuu xifdiyaa sidoo kale magacan wuxuu aad ugu fiican yahay amaan u yahay dadka musaafiriinta ama bari qofkaas ha ku safrayo ama bahri badda korkeeda ha ku safraye sidoo kale culimadu waxay yiraahdeen qofkii akhriya magacan waa magacan albarru wiilkiisa madaxiisa qofkii ku akhriya kala barkiisa 17 marna ku akhriya oo markaasna yiraahda Allahumma bi barakati hadha al-ism rabbihi la yatiman wala la'iman ilaahay wuu barbaariyaa baa liir sidoo kale magacan qofkii badiya baa liir xuskiisa haduu badiyo shaaribul khamr qofka khamriga caba iyo waxyaabahaas mukhadaraadka dadka isticmaala haday akhriyaan baa liir magacan iyo faa'ilul macaasi dadka macaasida sameeya ribada cuna dadkaas oo mataqaana xaraanta iyo cuna haday ka akhriyaan baa liir 700 iyo wixii ka badan ilaahay qalbigooda wuu rogaa baa liir oo ilaahay bay u toobad keenayaan oo wixii oo dhan way ka toobad keenaan hadii lagu dara baa la yiraahdaa magaca la yiraahdo ar-rahiim oo aad tiraahdid yaa barru yaa rahiim sidaas baaba waxa la yiraahdaa xagga ijaabada ku degdeg badan magaca 8aad waa at-tawaab waa Allah toobad aqbalida badan magacan at-tawaab qofkii akhriya bay yiraahdeen culimadu salaatu duhada gadaasheeda qofkii akhriya oo ka akhriya 63 mar toobadiisu way xaqiiqowdaa baa liiri oo macnaha waa loo aqbalaa oo qabuul ayuu helayaa sidoo kale qofkii ku akhriya baa liiri qof dhaalima qofkii ku akhriya 10 mar ku akhriya oo qof dhaalima ka akhrista macnaha ilaahay dulmigiisa uu ka fakiyaa baa liiri oo uu ka badbaadiyaa sidoo kale qofkii qoraba liiri magacan oo markaas kadibna ku dhaqa mataqaana roobka biyaha roobka qofkii ku dhaqa xareeda oo siiya qof khamri caba ilaahay khamrigii buu u careysiyaa baa leeyahay uuna ka toobad keenaaho ilaahay buu u toobad keenaa qofkaas magaca 81 waa al-muntaqim
waa allaha ka aarsada adoomadiisa oo dadka adoomadiisa dhiba oo mataqaan ahludurka mu'miniinta dhibaya ilaahay wuu ka aargoostaa oo waa looga aargoynaya dadkaas mu'miniinta oo ay dhibeen marka almuntaqim waa allaha ka aarsada adoomadiisa magacaan almuntaqim haddii la aqriyo baa la yiri oo lagu aqriyo qof la kari waayay oo macnaha dhibkiisa iyo shadaa'idiisa iyo la kari waayo qof mucaanida ah ilaahay uu uga aaraaba leeyahay qofkii magacaan aqriyay ilaahay uu uga aaraaba leeyahay wax alla wixii uu ka galabsaday magaca 82 waa al-afu al-afu waa allaha cafiska badan magacaan al-afu qofkii badiya baa leeyahay ilaahay wuxuu u furaa baabur rida raadi ahaashaha baabkiisa ayuu u furaa baa leeyahay waxaana la jeclaysiiyaa makaarimul akhlaaq ayaa la jeclaysiiyaa baa leeyahay hadii lagu darana al-afu al-ghafuur ismka al-ghafuur la yiraahdo hadaad ku dartidna sidaasaaba u degdeg badan baa leeyahay xagga ajiibida oo baabur rida iyo mataqaan makaarimul akhlaaq qofka waa u degdegayaan baa leeyahay sidoo kale qofkii aqriya baa leeyahay magacaan tirsigiisu waa maxay macnaha intuu yahay way cadadkiisa cadadku waxa way caynka al-afu waxa way 70 ayuu keenaa caynku xagga xuruuful abjadiyya faadu 80 bay keentaa wowguna wuxuu keenaa 6 ayuu keenaa marka waxa laga aqrinayaa 136 meelahaas ay noqonayaan adigu hadii la isku daro marka qofkii intaas ka aqriya baa leeyahay waa 156 way afwan ilaahay wuu ka aamin geliyaa baa leeyahay wax alla waxa uu ka baqayo magaca 83 waa ar-rauf ar-rauf waa allaha dhimrinta badan magacaan ar-rauf qofkii ba aqriya baa leeyahay markuu cariisan yahay 10 mar ka aqriya rasuulkana ku salliya calayhi salaatu wasalaam 10 mar caradiisu way degtaa baa leeyahay oo caradiisu way xasishaa waxa kuula mid ah qofkii ma taqaanaa qof haduu kugu xanaaqo oo kaleeto oo aad uu kugu caroodo hadii aad 10 mar magacaan ka aqrisid oo magacaan ar-rauf hadaa 10 mar ka aqrisid salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaamna 10 mar aad ka aqrisid ilaahi caradiisa wuu ka xasiliyaa baa leeyahay wuu ku jilcayaa qofkaasi qalbigiisu wuu ku jilcayaa magaca 84 waa maalikul mulki maalikul mulki waa boqortooyada boqorkeedii macnaha allih iska lahaa way boqortooyo oo dhan allih iska lahaa way adduunkan anagu boqortooyo waa iska sheeganaa ma ahane boqortooyo xaqiiqanimo ma lagu ma taqaan makhluuq ma haystaan magacaan maalikul mulki qofkii daa'ima baa leeyahay ilaahay baa deeqa baa leeyahay fadligiisa waasica ayuu ilaahay ka deeqaa sidoo kale wuxuu aad magacaan ugu haboon yahay baa leeyahay dadka raadinaya ma taqaanaa mulkigiisa ama boqortooyadiisa inay sii daa'imto oon xilka laga dhigin iyo waxyaabo saas qofka raadinaya aad iyo aad buu ugu haboon yahay baa leeyahay magaca 85 waa dul jalaali wal ikram dul jalaal waa allaha weynanka u saaxiibka ah wal ikramna waa allaha sharafta u saaxiibka ah marka magacaan dul jalaali wal ikram qofkii daa'ima baa leeyahay oo macnaha dul jalaali wal ikram magaca maalikul mulki dul jalaali wal ikram qofkii daa'ima oo maalin walba ka aqriya 333 ka aqriya adduunyada u hogaansanta baa leeyahay qofkaas magaca 86 waa al-muqsit al-muqsit waa allaha garsoora oo adoomadiisa u kala garsoora allaha cadaalada badanna waa dhihi kartaa oo cadaalada sameeya magacaan al-muqsit qofkii daa'ima baa leeyahay
waswaaska ayuu ilaahay ka anfiyaa baa la yiri cibaadada inuu laga waswaasiyo shaydaanku uu ka waswaasiyo iyo waxyaabahaas oo dhan baa laga anfiyaa baa la yiri oo ilaahay uu ka saaraa waswaaska dad waxaad arkaysaa salaada markay xiranayaan Allahu akbar ku soo celcelinaya marka qofkaas oo kaleeto magacaan inuu akhriyo sidaas u haboon magaca 87 waa al-jaami waa Allah adoomadiisa kulminaya macnaha Allah adoomadiisa kulminaya weey oo yawmal qiyaamaha waa la isu soo kulminaya magacaan qofkii daa'ima baa la yiri ilaahay maqaasidiisa ayuu u soo kulmiyaa baa la yiri sidoo kale waxa fiican baa la yiri ducadan inaad akhriso yaa jaami'an naas liyawmin la rayba fihi ijma' alayya dallati inuu qofku saas yiraahdo qofka ay wax ka lumeen magaca 88 waa al-ghaniy waa Allah qaniga magacaan al-ghaniy qofkii ku akhriya baa la yiri oo ma taqaana meel xanuunayso kala qofkii ku akhriya ilaahay xanuunka uu ka tagsiyaa baa la yiri sidoo kale qofkii akhriya baa la yiri oo ma taqaana ku masaxa gacantiisa xibnihiisa dhan ku masaxa ilaahay balaayada ayuu ka difaacaa baa la yiri sidoo kale waxa ma taqaana waxa ku jirta baa la yiri sir qaninimo ah oo qofkii daa'ima kun mar maalin walba kun jeer ka akhriya ilaahay tanaad ayuu ka dhigaa baa la yiri qofkaas magaca 89 waa al-mughni waa Allah dadka qaniga ka dhiga waa Allah dadka macnaha qaniga ka dhigo deeqtoon Allah ka dhiga weey marka waxa la yiri magacaan qofkii akhriya kun mar macnaha 121 mar qofkii ka akhriya gacantiisu waligiis ma faqiirowda baa la yiri sidoo kale ilaahayna wuxuu ka deeqaa baa la yiri fadligiisa waasaca sidoo kale qofkii akhriya baa la yiri suuratu duha qofkii akhriya oo yiraahda Allahumma ighnini bifadlika amman siwaak oo daa'ima baa la yiri 40 maalin ilaahay wuxuu u soo diraa dad ma taqaana u shaqeeya oo wax allaale wuxuu doonayo u fuliyo ayuu ilaahay u soo diraa dadkaas oo ilaahay uu adeejinayo subhanahu wa ta'ala magaca 9aad waa al-maani magacaan al-maani waa Allah balaayada ka difaaca adoomadiisa marka magacaan al-maani qofkii akhriya baa la yiri markuu seexan rabo ilaahay wuxuu ka tagsiyaa baa la yiri oo ka qaada wax alla waxa u dhaxeeya asagii xaaskiisa oo cara ah asagii xaaskiisu hadii isku caraysnaayeen isimkan haduu akhriyo qofku ilaahay carada dhexdooda uu ka saaraa baa la yiri magaca 91 waa ad-dar magaca 92na waa an-naafi intaan ayaanu ku soo gabagabeynayna aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe sar gambaralka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino waad ku maasan tahay daawashada muuqaaladeena like na saar waxay noo tahay dhiirigelin oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel